بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أحبابي يعني ليه ولا ليه جاي تبيان كا قاقام فاي سنتير لا توفوتشي أنا وحان واحد له يا change waxaan aad iyo aada ugu soo jeestay maalmahan barakeysan ee bisha ramadaan dhamaatay ciidda ah. waa waajib waxaanu ka hadlayno maaha qabiil, waxaanu ka hadlayno maaha dad naceeb, waxaanu ka hadlayno waxa weeye waxaa la yidhi haddaad munkar aragtid facshar aragtid ka hadal, waajib baa kaa saaran. allii fasadool al umma waa in laga qabtaa. waxaan rabaa inaan u muuriyo dhibta ka taalo kilinka shanaad ee Ethiopia, kilinka Soomaalida ee 9 gobol ka kooban ee caasimadeedu tahay Jigjiga. caasimaddu waxa weeyaan waa halboolihii, waa wadnihii, waa sharaa'iinkii ee dhiigga siinayey, ee nolosha siinayey, ee caafimaad siinayey, waxbarasho siinayey, ay dadkuna ay noqdaan dad xor ah. xornimada waxaa ugu horeeya waxaa waaye qofku inuu jagooyinka dowladda u siman yahay, ay jirto equality. waxaa xigo bulshadu waxay ku nooshahay tijaarad, shaqo iyo wax soo saar iyo waxqabad ilaa hoosta tag alyoom, kuwa wax iibiyo kuwa laga iibsado. de waa sharaa'iinka shacabka ummadda waaye wada nool. haddii ay ummaddii aysan helin dowlad wanaag, aysan helin leadership ka madax bannaan tijaarad, ka madax bannaan qoys, ka madax bannaan taifiya, ay dadku u wada siman yihiin. mahmaa kaan hadduu amxaar naqdo ka talinayo jigjiga, waxaanu oran lahayn ninka joogo waa nin ethoobiyaano, waa leader. hadduu oromo yahay, tigree yahay, qolo walba. soomaalidu weligeed way dhibaateysneed. markii laga hadlayo soomaalida Ethiopia, dhibaatada ugu weynna waxaan la qabnay ethoobiyaanko idin. marna waxaa haystay reer amxaara boqortooyo ah, marna waxaa qabsaday dictator dargi ah asna amxaara, oo dargi iyo amxaaro iyo kaligii taliye ku salaysan dil, ku salaysan boob, ku salaysan reer talinay. asif waan ka xumahay inay Ethiopia xorowday, dowlad dimuqraatic noqotay waagii zanaawi, waagii la soo socday. laakiin maanta waxaan doonayaa waxa aanu ku heesanno cabdi iley waxa ay ku heestaan dadka isbeddelka doonayo. waxaa Ethiopia ka weyn hunguri. haddii halkaa dhuunta lagu qabto, haddii caloosha lagaaga fariisto, haddii mansab hadday tahay, shaqo hadday tahay, ciidamada hadday tahay, shaqaalaha dowladda hadday tahay, wasiiro hadday tahay, tijaaro hadday tahay, wax walba uu reer isku koobo, dhibteeday leedahay. waxay leedahay dhib weyn u baahan in la kaco, in la iska dhiciyo. cabdi iley maanta wuxuu gaaray un impero markaan ku leey wuxuu gaaray boqortooyo fircoona, fircoon hamaan. wuxuu gaaray in sidii reer bini israa'iil soomaalida Ethiopia uu ku sii socdo, maalin walba ku sii dheeraanayo, inuu dadka dilo, genocide subiyo, new police u subsado, asagana tarwo ka sameeyo, lacageysto, mafia noqdo, alcapone noqdo. waa alcaponaha geeska africa. taa waxaan la hadlayaa dhalinyarada jiilka saddexaad, waxaan la hadlayaa si fiican ii dhegeysta. waan soo tilmaamayaa, waad fiirin kartiin jigjiga,
waxaan ka hadlaya waa fiirin kartiin marka point baan usoo taabanayaa ninkaa dhibta uu ku hayo ummadda iyo wuxuu naqday iyo taliskaa qoys naqday reer xataa lama oran karo waa talis qoys ah saydiyaashii inimadii kuwa adeerka u yahay dumarkii dee wax loo adkeysan kara ma bismi illaahi raxmaani raxiim waxaa maanta jigjigo ku xiran oo dulmi ku xiran mawliid xayr oo ah nin samaroon ah ahaa madaxweyne ku-xigeen waa la bedeli karaa laakiin lama xiri karo wuu xiran yahay waa house arrest waan wada ognahay mawliid xayr waa la xiray okay waa la bedelay madaxweyne ku-xigeen buu magacaabay yuu magacaabay wuxuu magacaabay qoyskiisa wuxuu magacaabay sucaada ogaadeen kasoo sokeyso waxaa qaba inan laba goolle oo generaal ah ugu sareeya ciidamada new booliska ah oo aan garanayn wuxuu dubad ka geystay in ciyaal iyo dumar uu xasuuqay madaxweyne ku-xigeen waxaa laga dhigay sucaad waa inan ogaadeena waxaana qabo inan wadeer u yahay laba goolle generaal ah new booliska oo ay garanayaan dadka dhan iyo dhibtuu ka geystay dubad ciyaal iyo dumar inuu xasuuqay kursi wax walba geystay taasi waa mid ganacsiga haddaan ugu soo noqono ganacsiga ugu weyn ee 6 gobol ee kilinka shanaad ganacsiga ugu weyn waxaa waaye horto importer waxa waaye wholesale waxa waaye retail ganacsiga kilinka shanaad waxaa ugu weyn ninay yidhaahaan qadar ilay oo cabdi ilay monobolia ku siiyey oo loo xiray wax walba hadduu yahay qalab dhismo hadduu yahay raashin hadduu yahay bariis hadduu yahay sokor hadduu yahay shidaal hadduu yahay dhar hadduu yahay wax walba 9 gobol asagaa loo xiro asaga keliya keeno nin dir soo dejin kara male cabdi ilay sidaan ognahay qaadku etoobiya taariikh buu leeyahay qaad furan oo ahaa qaadka hargeysa oo aada qaadka in afdiinle oo garxajisa ayaa qaadka soo dejin jiray waa laga qaaday wuu cararay hargeysa qaxooti ku yahay maanta waxaa kaloo soo dejin jirtay gabar la dhaho zuhuur sacad muuse ah wuu eriyey dirdhabay qaxooti ku tahay qaadkiina waxaa loo xiray cornel ciro cabdi ilay ayaa adeer u ah wuxuu ahaan jiray taliyaha ka mid ah ciidamada soomaaliya qeybta 26aad ciidanka dalka soomaaliya dalka kilinka shanaad wuxuu noqday dal qoys ah haddii ninka qaadka loo xiray wuxuu la dhashay cabdi ninkaa aan ka hadlayo wuxuu la dhashay cabdi ilay bahda yar ayaa ula dhasho waa seedigii weli waxaan ku jirnaa qoyski weli ma aan arag hal shaksi oo dir ah oo 6 gobol ee kilinka shanaad jago mas-uul ama tijaarad ama wax ka qabsan kara gabar baa jirto maanta maasha allah alxamdulilah oon ra-iisul wasaaraha u mahadnaqayno wasiirka ah waa ubax xuseen giir baa awoow u ahaa ninkii la garanayey ee somaliland meel walba iskoolaadka lagu magacaabay ee taariikhda lahaa ismaaciil xuseen giir ayaa awoow u ah
cabdi ilay jigjiga wuu ka eriyey khatar bay nolosheeda ku gashay wuu ku dili lahaa xataa 5 sano qaxooti waxay ku eed Ethiopia cabdi ilay wuu ka eersaday jigjiga waxay ahayd baaris waxay ahayd mutacalimad waxay ahayd qof diidan dulmi waxay ahayd qof isbedel doona waxay ahayd qof doonaysa xataa dowladda hadday rabto inay joogto inay ummadda wax u qabato way ka carartay waa la dili gaaray 5 sano ayay Addis Ababa qaxooti ku ahayd xaqa wuu soo daahay maanta waa wasiirka isgaarsiinta Ethiopia ee jigjiga waxaa doortay dowladdan cusub ee ra-iisul wasaaraha ka yahay Abiy marka aniga pointkan ka hadlayo kama hadlayo ogaadeen baa dad dulmays waxaan ka hadlayaa qoys baa dad dulmayo qoyskaa wuxuu ka dhashay reer wuxuu ka dhashay qabiil reerkii iyo qabiil hadduu daarood yahay wuu ku raacsan yahay wuu ku ayidsan yahay Soomaalidu ninkooda tuuga ah waa shariif ninkooda ummadda dulmayo waa geesi ninkooda wax boobayo waa ciyuunan axmar ay tiraahdo carabta waa geesi waxbuu soo dhacsadaa la leeyahay dhaqaalaha dalka 9 gobol leadershipka waxa weeyaan free market cadaalad in la helo in la isxirin in dadka la laayn in ciidamo loo suubsan in ay dadku noqdaan ciidamada inay dadku noqdaan tujaaradda inay dadku noqdaan dad wax qabarsanayo inay dadku noqdaan dad canshuur bixiyo dee dadkay ku dhisan tahay haddii meeshii uu dulmi yimaado uu qoys gacanta ku dhigo dowladnimadii uu qoys kuma oranayo qabiil qoys gacan ku dhigo dowladnimadii uu qoys ku dhigo hantidii dowladda uu qoys gacanta ku dhigo tijaaradii shacabka ay xor u lahaayeen inuu qoys ku dhigo gacanta retreatka raashinka wax walbo iyo dhaqdhaqaaqa dalka ee gobolka Kenya ka shaqeeya waxaasi aan sheegayo ka hadlayo main point ah hadday tahay wax soo dejin hadday tahay raashin hadday tahay qalab dhismo hadday tahay transport hadday tahay shidaal wax dir ah oo shaqo ku limaada 9 gobol waad fiirin kartaa haddii la yidhaaho mansabyada ugu sarreeya ciidamada haddii la yidhaaho madaxweyne ku-xigeen haddii la yidhaaho golaha wasiirada dee waxaa jiro dad la isticmaalayo maqaar saara laakiin aysan joogin dadkii direed ee competitive-ka ahaa marka maanta mahad ilaahay weeyaan waxaa timid dowlad wanaagsan ma yeelayno mafia Al Capone oo jahil ah oo cabdi ilay inuu ummaddaa dulmo ay ummaddana daawato marka waxaan oranayaa dir iyo daarood weeyaan hawdka Ethiopia we need new ground waxaan u baahnay new ground waa inaan dulmi ka diidnaa cabdi ilay kaliya maahane waa inaan dulmi ka diidnaa dowladda Ethiopia ee dhexe waa inaan tusnaa cabdi ilay wuxuu yahay dowladday u taallaa hadday bedelayso iyo reer jigjiga inay kuma daahiraadaan laakiin annagu emkeenna waxa weeyaan waxaanu tegaynaa dalkeenna iyo dadkeenna ilownay bimashaf kilinka 6 ee hawdka Ethiopia ground nadiif ah qabyaalad jirin ee qoomiyadda direed iyo daarood ay ku siman yihiin dowlad wanaag inay ka noqdaan inay mas-uul ka noqdaan inay taliyo ciidan ka noqdaan inay cabinet wasiir loo siman yahay ka noqdaan power sharing uu ka dhaco uusan naqan kilin cusub oo qoys qabsado sidii fircoonka ee munaafiqa ah ee reer bini Israa'iil ayuu fircoon gumaysan jiray dhaqaalaha haysan jiray kufsan jiray dili jiray oo ilaahay nabi muuse u soo diray marka waxaan oranaynaa Abiy waxaan ka codsanaynaa in maanta aanu diidnay dulun inaan maanta doonayno inaan kilinka shanaad bedelno inaan maanta doonayno kilin hawdka Ethiopia state oo ah kilinaan xaq u leenahay ee dir iyo daarood oo aan ahayn qoys ee ah shacabka Ethiopia in la helo aysan naqan kilinka shanaad ee ah shanta jahannamo ee ummadda duleey waxaan aad iyo aad ula hadlayaa wasiiradda ubax oo garanaysa si fiican cabdi ilay
oo garanaysa dowladda jigjiga ka jirto ay maanta central government ee soomaaliya ku jirto federaalka etoobiya ku jirto waxaan odhanayaa ubax waajib baa ku saaran dulmigiyaad ka soo carartay maanta haddaad kursi heshay dadkaaga ha iloobi waxaa loo baahan yahay inaad guul soo hoyeysid iyo inaad isbeddel maahane waxa aad xaqa u leedahay ee ummadda ka maqan ee ahayd state of ethiopia dir iyo daarood in aad ka dhawaajiso inaad dowladda aada la shaqaysid u sheegtid inay dad dulinsan yihiin inay dulinsan yihiin dad u dhigma 75% populationka soomaalida ee ethoobiyaanka lagu sheego aniga laakiin waxaan ku oranayaa soomaali ethoobiyan ma tihiin ma nihin waxaan nahay hawdka garxajis ma nihin keliya waxaan nahay hawdka dir iyo daarood waxaan nahay kelinka kelimada ugu weyn ee u dhigmi kara kelinka oromiyo waxaan kaa codsanayaa inuu kambaynkeenu ka bilaawdo dhanka dowladda oo xaqa tustid oo adiga iyo axmed shide waxaan laga sugayaa hawdka ethiopia kelinka lixaad sidii lagu dhisi lahaa sidii constitution loogu suubin lahaa adinkaa siyaasadda kelinka ah adinkaa shacabka matala maanta waxaan aada iyo aada u sheegayaa inaad videogan si fiican u dhegeysatiin sheer garaysiin iisoo sheegtiin 9 gobol wax dir ah ee ku nolol ku haysta ama tijaarad ku haysta ama mansab ku haysta hadday jiraan qoyskaa maafiyada ee alcapone ah alcapone wuu ka weeyahay cabdi ciley wuxuu noqday fircoon waxay ka mid yihiin calooshii fircoon u yeeshay qoyskii fircoon oo kaleu noqday ummaddii wuu baaba-iyey wuu duleeyey ma yeelin hasta la victoria sempre qaayasha mac salaama